وينهنو صدوو مدح وينهنو صدوو مدح وينهنو صدوو مدح وينهنو صدوو aad baad u mahadsantihiin waxaan u malaynayaa waxaan filayaa kulligiin waa idin salaamay horta siba anaga dhan u maxabaysanahay marka waxaan u malaynayaa ilaa iyo 90kii dagaal baa gondahayga ka kici jiray laakiin se waxay la tahay wiiga kan guul aan filayn baa gondahayga ka kacday runtii anaga dhawaa khudbada lafteedu gondahayga ka kacday runtii waxaan islahaa culimada iyo aqoon-yahanada iyo aad u daysid halka kana caawo uma imaanin inaan maaragtay aan wax idin sheego oo sababtu tahay waaba insaltin hadaan wax idin sheego culimadayadii baa fadhida aqoon-yahanadii baa fadhiya khiyaartii oo dhan fadhida laakiin waxay wiilashu ugu sharfeen inaan waxa aan dareemayo maadaama aan hooyo ahay gabar ahaan jiray gabdho leeyahay in aan caawo meeshaan aan macnaha aan idinkaga sheego sida aad u faraxsan tihiin aad uguma faraxsanin oo gabdhaha gadaashooda farxad bay ka timaadaa markaan wax qabad aragnaan anagu farxi doonaa laakiin runtii waan ku faraxsanahay waxyaalaha sida ay ilaa hadda ku socdaan waxaan rabaa inaan idin sheego waxay ila tahay dadka meeshaan fadhiya in yar baa aniga iga weyn ilaa iyo intaan aqliyeystay dawlad dimuqraadiyad ah anigu kuma aqliyeysan laakiin waalidiintaydu waxay ii sheegeen inay aadan cadde uu ahaa dawladii ugu dambeysay oo dimuqraadiya ah ilaahay ha u naxariisto aniga generationkayga waxaan u aqaanaa aabaha dimuqraadiyada Sheekh Shariif baan u aqaanaa oo generationkayga ah sababtu tahay meel dheer buu arrimahaas ka soo qabtay meel shiil rabay asagoon gaarsiina xasan baa ka raayay and I think sidii ugu wareejiyay xasanna wuxuu noqday arday wanaagsan buu noqday baan aaminsanahay aniga Sheekh Shariif ha noolaado cimrigiisu ha dheeraado ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wali waa nin yar inuu jaaniskiisa mar labaad uu soo noqdo baan ilaahay ka rajaynayaa sababtu tahay waa nin geesi ah waa nin yar waa nin ehludiin ah waa nin wadani ah baan aaminsanahay marxaladda ku adkayd laakiin sameel dheer buu wax ka soo bilaabay baan aaminsanahay Sheekh Shariif aniga generationkayga aabaha dimuqraadiyada bilaabay Soomaaliya waa Sheekh Shariif saan idin sheegayna xasanna arday fiican buu ahaa farmaajana waxaan ka rajaynayaa inuu arday wanaagsan noqdo asagoo haddaan u soo noqdo dareenka gabdhaha ilaa waxaan rabaa inaan u sheego baarlamaanka horta aad bay u mahadsan yihiin dhageystay ugu dambeyntii waxaan dareennay in codkayga la dhageystay taas horta farxad weyn bay noo tahay tan labaad haddaan sheego dareenka gabdhaha kolley anigu saan dareemayo anaa mshuur gabdho badan iyo hooyooyin badan dareemayaan 30 sanaan baroorinayna anagu indhahayagii baa guraysaan u baroorinayna waxaan ka barooranay maydkayga banaanka yaal farmaraas Cambodia aras casayr baan ka barooran waxaan ka barooranay badaha maydkayga yaal xeebaha adduunka maydkayga yaal baan ka barooran waa ilmahayagii waxaan ka baroonay saxaraha carabta maydkayga daadsan anagoo Soomaali ah oo dhul wanaagsan leh oo hanti badan haysana in la dhaho waxaas waa Soomaali heer waxaan gaarnay aan laga nixin Soomaali waa Soomaali waxa halka ku dhintay la dhaho waxaan aad indhahayagu u gureen oo baroor ugu gureen wiilashayda lagu laayay kaliija meelaha maaragta locationada ah iyo wadankan South Africa inkastoo dadka South Africaanka iyo dawladda South Africa aan uga mahad celinayo sida ay maaragta wadankooda ugu soo dhameeyeen ugu soo dhaweeyeen laakiinse waxaan baroortayadu meel dheer bay gaartay wiilashaydii baa la dhameeyay ilmahayagii baa la dhameeyay runtii aad iyo aad baan aan uga xumaa arrintaas waxaan kaloo rabaa inaan farmaajo u mahad celiyo aan u duceyno oo ilmadaas uu naga tiro baan ilaahay ka rajaynaa hal wax baan ku daray
waxaan rabaa inaan idiin sheego labadii maalmood oo la soo dhaafay waxaan ninka la dhaho farmaajo aan ugu sii riyaaqay waxa u badan wafdiyadu markay u yimaadaan ama ay dadka ma aragtaa safaaradaha u yimaadaan waxa u horeeyo uu dhahaa waxa waaye dadkayga baahan daqsi inta la isaga dhiibuu dhintaa kama gaaro ballanqaad runtii markaan arrimahaas akhriyo ilmaa timaada waana uu ku mahadsan yahay walaalkii jira waxaan leenahay farmaajo noo yimaado Soomaaliya